munaasabadani oo ahayd mid ay xilalka kala wareegayeen gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay gobolkani Xaamud Xuseen Cabdillaahi waxaana munaasabad ballaaran oo si heersara loo soo agaasimay ay maanta ka dhacday hoolka shirarka dawladda hoose ee degmada Berbera iyadoona ay halkaasi ka soo qayb galeen maamulka gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera iyo sidoo kale cuqaasha iyo waxgaradka kala duwan ee gobolka Saaxil oo goob joog ka ah xil wareejinta labadani mas'uul gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin sidoo kale qaar kamid ah cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Saaxil oo iyagu ugu horeyntii munaasabadaasi ka hadlay ee si ballaaran u soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay gobolkani iyagoona la uga bariyay in alle xilkaasi u fududeeyo waxayna sii sagootiyeen gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi iyagoona ku amaanay waxqabadkiisii baaxadda lahaa muddadii uu joogay gobolka Saaxil labada mas'uul ee midna xilku wareejinaya midna la wareegay waxaan leeyahay ka xilka wareejinaya ee gudoomiye ku-xigeenkii hore Khadar waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryayaa marka hore inuu meel khayr la mariyo marka waxaan leeyahay duco si sagood wanaagsan si amba bixin wanaagsan ayaan leeyahay ku sii soco insha Allah taala gudoomiye ku-xigeenka cusub waxaan leeyahay soo dhaw gacmo furan ku soo dhaw qalbi furan ku soo dhaw waa gobolkaagii xilkuun baa kugu cusub oo yaala deegaan han kugu cusba waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu xilka ay ka sareeyaba oo qaban doono insha Allah taala waxaan soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan ku soo dhaweynaynaa niyad sami ku soo dhaweynaynaa Xaamud gudoomiye cusub ee nusayna soo dhaweynaynaa gudoomiye ku-xigeenkii hore gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi oo isaguna ka hadlay munaasabadaasi ayaa si rasmi ah dokumentiyadii xafiiska gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil ku wareejiyay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee loo soo magacaabay xafiiskani waxaana uu mas'uulka cusub Ilaahay uga bariyay in alle xilkaasi u fududeeyo maanta waxaan filayaa waxa ay yaalaan mahadnaq wax kale ma yaalaan waxaan leeyahay waan ogahay xilku waa meerto waxaan soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka loo soo magacaabay Mr. Xaamud gudoomiye ku-xigeenka cusub Xaamud Xuseen Cabdillaahi oo isagu gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa si rasmi ah ula wareegay xilkii gudoomiye ku-xigeen ee gobolka Saaxil waxaana uu goobta uga mahadnaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu u gartay inuu u magacaabo xilkani taasoo aniguna aan talo iyo wadaag iyo wadatashi iyo arrin iyo wixii wadatashi aan meel uga soo wareejin doono horumarkaygana aan kor uga qaadan doono aanu meel ahaan uga soo wareejin doono maanta hadal badan ima yaalo mahadnaq baa ii yaala halka waxaan uga mahadnaqayaa madaxweyne Maxamed Axmed Fiilaayo oo ah madaxweyne qaali ah oo Axmed Maxamuud Fiilaayo waxaan uga mahad ku weyn baan uga jeedinayaa halkan Khalid Xasan Kharash telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.